السلام عليكم gabdhaha qaaliga waa idin wada salaam markasta adduunka joogto waxaan rajeynayaa in caafimaad qabtaan asxaabta cusub waxaan idin leeyahay gacan furan kusoo dhawaada haddii ay tahay markuu guulaysto channelka soo booqto subscribe inoo saar like-tan hanaga iloobin insha allah muuqaalka meel dheer hala gaarsiiyo waan mahadsantiin soo dhawaada soo sida arkaysaan cuntadii waqti dheer laga sugayay gabdhaha walaalahay oo iga soo codsadeen muuqaalka ayaan hadda idiin soo diyaariyay waxaan rajeynayaa inaad ka bogataan muuqaalkan oo aad ka faa'iidaan insha allah oo aan aysan noqonin mid lagu qasaaro soo sida arkaysaan bacdan ayaa idin tusinaya waxa ku jirto digirta yar ee dhamacada oo yaryar galey iyo barbarooni gaduudan oo si yaryar loo soo jarjaray soo sida u aragtaan ayaan bacda idin tusiyay halkaas ayaan kusoo shubtay xoogaha soo waxa iga dhacday galey wiilkayga yar ayaa caawina maasha Allah tabarakallah soo galey iyo waxa digirta dhamacada ma atuur anaga dhahnaa iyo waxa waaye isku jirta barbarooniga cas intaas ayaan u baahanaa insha Allah caruurta sameey insha Allah gabdhihii qurux badan hadii ilmahaga sanadka yar yihiin laba cunto isku kari si ay ugu badbadasho 3 maalin gudahooda u siisato cuntada hadii ay badan tahay meesha barafka gashtay insha Allah soo halka waxaan kusoo diyaarsay arkaysan waa broccoli 3 xabo jab malay hal xabo baradho iyo zucchini qof kasta uu garanaa waxa waaye waa bocorka zucchiniga iyo hal xabo toon so intaas ayaan soo fiiqo doonaa insha Allah zucchiniga ayaan waxaan ka jaranayaa jab cunugaaga iyo inta maalin wax siisanaysa ay ku xiran tahay aniga hadda cuntadan aan karin doono 2 maalin qadadooda ama 2 maalin cashadooda ay noqonaysaa sida fahantaan insha Allah sida yani ina fahantaan ayaan rajeynaa soo baradhada ayaa hadda fiiqanayna cuntadan lagama sheekeyn karo hadii uu yahay babygaaga 6 bilood 5 bilood ka bilowdo ilaa 9 bilood wax siisan kartaa maasha Allah tabarakallah inkastoo aniga ilmaha waxa lagu bilaabaa 4 bilood ayaa fiican in lagu bilaabo cuntada si ay dhadhanka u bartaan soo cunugaaga 4 bilood ilaa 6 bilood waxa fiican qudaar bis in uu shiido oo aadan ku darin wax chicken ama malay aadan ku darin sida aniga sameeyo kaleeto sidoo cunuga cuntada uu la soo qabsado calooshiisa saas ayaan sameeyaa soo cunuga markuu 6 bilood soo gaaray ayaan waxaan ku bilaabaa malayga chickenka sidoo kale hilibka oo kale markaas ayaan ugu daraa cuntada ani ahaan labada cunug aan yani aan hadda haysto maasha Allah tabarakallah sida iga caawiso cuntada ugu fudud ee ku bartaan soo qudaarta markii aan soo jarjartay waa soo nadiifay maasha Allah tabarakallah baaqulga aan yarka ayaan kusoo wada dhaqday kusoo wada shubtay halkaas ayaan ku wada diyaarsanaa waa kari doonaa waa isla arki doonaa soo baxayso cuntadan waxba cusbo uma baahno cunugaaga please waa ku barya abaayo hooyo hadda ay maqlayso cusbaha iska siin cunugaaga ilaa iyo sanad intuu ka gaarayo dib mala cuntooyinka dadka waaweyn ee cunayaan oo kale way kula dhadhamin karaan laakiin muhiimadu waxa waa cunuga cuntada aad siinaysa asaga u qaaska cusbo ha kaga darin insha Allah waxaan rajeynayaa inaad fahantaan waayo cusbadu waxyaalo badan ay leedahay kaliyaha ay tirtaa ciyaalka waxa kale oo muhiimadu ay tahay waxay tahay idin sheega gabdho koostada sidoo kale ha iska siinin ciyaalkiina koostada waxa ku jirto maado cusbo leh soo cunuga kaliyiis ay wax u dhibaysaa malabkana sidoo kale ha iska siinin insha Allah soo digsigeeni ay halkan soo saaranay biyo ayaan ku soo shubay qiyaas bakeeriga biyaha ayaan ku soo daray waxaan ku soo darsaday kale wax yar oo xawaaji dhuub waxaan rabaa yani dhadhanka cuntada dadka waaweyn oo kale inuu ugu soo dhadhanto cuntada ee ku bartaan ilmaha udgoonka ama carafta ama xawaashida kala duwan ay ku baranayaan soo kamaanan badinin waayo xawaashka badan ma fiicno wax yar ayaan ku soo daray cuntadeen haduu inoo soo karkartay waa inoo diyaar wax yar ayaa u dhiman insha Allah waa isla arki doonaa mar labaad ayaan daboolka ku celinayaa inta inooga soo bislaanayso haddana kaaliska arag waa kana waa soo daminay dabkii waa inoo diyaar waxaan shiidi doonaa insha Allah waan shiidi doonaa sidoo soo baxda kaaliska arag lagama sheekeyn karo waxba cusub ha u dhaweynin intaas cunuga aad siisato waxa waaye cunto heer sare oo maasha Allah tabarakallah oo aan laga sheekeyn karin waa ilmahaaga muhiimada maaha cunugaaga inuu cayilan yahay muhiimada waxa waaye hooyo cunugaaga inuu helay cunto isku dheelitiran nafaqaysan inuu haysto cayilka waxa Ilaahay wax ka yimaado ha ku degdegin inuu cunugaaga cayilnaado ama yani cunugaaga wuxuu ku cayilayo kaleeto cunugaaga haduu caafimaad qabo haduu lixaad qabo haduu yani cunug fay oo maasha Allah tabarakallah ku yahay waxba kale uma baahna cunugaaga insha Allah cuntada aad siisanaysa le controlo يعني iska fiir cuntada aad siinayso gacantaada wax walba ugu sameey cunugaaga
soo meeshan waxaan soo qaatay mashiinka gacanta lagu shiida ayaan soo qaatay, meesha ayaan kusoo shubay, waan shiidayaa. waxaaba cuntada sida doonto ayaa ka dhigi kartaa, cunugaaga sidoo ku cunaa. haddii rabto xoogaa waa yara adkay kartaa cunugaaga hadduu 8 bilood ka wen yahay. haddii kaleetana waxaa sameyn kartaa waa sii jilcin kartaa cunugaaga haddii 4 bilood jiro insha allah. waxay ku xiran tahay cunuga aa markaa siinayso, ilmahana dhuuntooda markay wax la qaayo way kala duwan yihiin. maasha allah tabaarakallah. cuntadani hadda saas ayay diyaar noogu tahay, lagama sheekeyn karo macaanta iyo carafta udgoonta. cuntadii labaad ayaan hadda gudagalaynaa, يعني laba qayb ayaan idin tusinaya ugu fudud ee ilmaha la siisto oo maasha allah tabaarakallah ay kugu noqonayaan cuntooyinka ugu fudud. soo halkan chicken ayaan soo jartay, yani jeex ayaan soo jartay oo si fiican aan usoo nadiifiyey. waxaan kaloo soo qaatay baastada yaryar ee ilmaha loogu talagalay, iyada dhanba 3 daqiiqo ayaa loogu talagalay in la kariyo. waxaan kaloo soo qaatay karooto ayaan waxaan ka fiiqayaa qubka ama maqaarka kore ayaan ka fiiqaa, hal xabo yaanyo iyo bataati macaan. bataati macaanka laba nooc kala yahay, bataati macaankeeni wadankeeni laga helay iyo bataati macaanka wadamankan kaleeto aniga aan joogno kaleeto waa isticmaali kartaa nooc alaal nooc yahay insha allah. soo intaan ayaan ka sameyn doonaa cuntada labaad. waxaa waaye cunto ay naba caadi ahayn, ilmaha u fudud, caloosha kugu jilcinayo. to haddii aad isdhehaysaan oo kaleeto cunugaaga oo kale ma jeclaanayo cuntooyinkan, way u bedeli kartaa waxyaabo kaleeto uu jecel oo kaleeto ayaa ugu dari kartaa. ku baro way horta insha allah. sidaan ugu kari maanta haddii uu ka cuni waayo biri nooc kale u kari, biri nooc kaleeto ayuu ka cunaa insha allah. weligaa lagama quusto, ilmaha wax kasta oo lagu dayaa si ay u bartaan. soo ilmahaaga haddii uu jiro 4 bilood waxaa sameysaa bataati macaan iyo karooto bis uu kari biyo. bataati macaanka iyo karootada inaba caadi maaha, haddii aad biyo ugu kariso intaas aa u shiido ilmaha 4 bilood jiro waxaa waaye heer sare waaye. intaas oo ka badan eega waayo uma baahnaba waxyaabo hilib iyo waxaas uma baahna, haddii calooshooda bilaaw tahay ee wax la qabsanaysaa. soo walaalahayga qaaliga ama gabdhahayga quruxda badan waxaan idin leeyahay qudaarteeni sidaas ayaan kusoo diyaarsanay, baastada, karootada, yaanyada iyo chickenka shafka haddii aad chicken haysanin hilib waa u bedeli kartaa insha allah. wax alaala wixii aan markaas haysato ama guriga ku yaalo isticmaal. muhiimada waxaa waaye isbuucii cuntooyin kala duwan inaad cunugaaga siisato soo asagana yani jirkiis u helaa nafaqooyinka kala duwan ee u baahnaay insha allah. soo bakeeri biyo ayaan soo qaatay, cuntada aan karinayo waxba saliid kuma dhaweynayo, biyo bis ayaan ku karinaa insha allah. soo biyahaas ayaan ku karinaa. haddana waxaan kusoo daray oo kaleeto wax yar oo xawaash waxaan kaloo kusoo daray xawaash kaari wax yariis ayaan kusoo daray oo far iyo suul la dhihi karo. soo intaas ayaan isku dhex walaaqa si fiican isku dhex gelinaa. waxaan rabaa inaan ilmayaasha idin sheego way kala duwan yihiin. ilmo qaar waxaa jira cuntooyinka dadka waaweyn ee cunayaan oo kala jecel inay la cunaan oo kale, markaas laa baas dhib ma laha taas, si cunugaaga afku gelgeli haddii uu markaas u xiiseynayo. laakiin waxaan sameysiin insha allah cuntada eega ee leeyihiin ilmaha oo qaasku sida idin sheego cusbaha kaga darina eega iskale sidaan ugu kariyay insha allah. soo inoo soo karkartay wax yar ayaa noo dhiman insha allah, kadibna isla arki doonaa sida kusoo baxdo. cuntadan waa high protein, uma baahna wax saliid diyaar markay inoo soo noqotay halkaas ayaan kusoo shubtay. sidoo kale iidan waa shiidi doonaa, inaba caadi maaha. waxaan rajeynayaa gabdhahayga quruxda badan inaad ka faa'iidaan, waad ka faa'iidaysataan insha allah. karaal noqdo insha allah. meeshaas xarig kasoo jeedo waxaa waa jaajar mobile iigu jiray, mar dambe ayaan arkay oo yani inay kaamirada qabatay. soo mashiinkeena ayaa halkan ku shiidanaynaa. hooyooyinka ku dhiban ilmaha cunto diidka waxaan idin leeyahay abaayaal ilaahay idin la garab galo, laakiin waxaan idin sheegaa ha ku qasbina ilmaha cuntada inay cunaan. cuntooyinka kala duwan u dhadhan siiya, dhadhanka afka ugu tira maanta dhan cuntada cunayso kaleeto afka ugu tir si uu u barto cunugaaga cuntooyinka kala duwan insha allah. ilaahay xaggiisa ay ka qoran tahay, wax kasta xagga ilaahay ayay ku imaadaan. soo laakiin dadaalka adaa laga rabaa markaa hooyo tahay inaad ku daydo, inaadan quusanin, inaadan sameynin. waxaa sameysaa insha allah cunuga wuxuu cunaa ha isdhihin qudaarta agdhig, ayu qudaar aragta mooska yani tufaaxa qolofka ka fiiq wax dhan agdhig insha allah. soo labadeena cunto saas ayaa noogu soo baxday, lagama sheekeyn karo. ka sheekeeya gabdho, waxaa waaye cuntooyin aad iyo aad u fudud oo kaala iskaara oo inaba caadi ahaan waaye.
labada cunto sidaas ayay diyaar noogu soo noqotay hadda maasha allah tabaaraka allah. dib muuqaalkan xaqiisii insha allah haddii idin soo gaaro gabdhiga quruxda waxaa idin leeyahay inaad ka faa'iidaystaan ayaan idin rajeynaa. waxaan idin leeyahay muuqaalka xigo khayr iyo caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo ayaan idin rajeynaa. waxaan kaloo soo xasuustay saliidaas arkaysaan sawirka qaatay insha allah. saliidaas maadaama aan saliid ku karinin cunuga markaa u diyaariso cuntada aad sii rabta ayaa wax yar ugu dareysaa rabis ooliyo cunuga faadka u baahnaay oo jirkiisa u baahan yahay ayuu ka helaa saliidaas. calooshana ma fadhiisanayso waxaa loogu talagalay caloosha cunuga inay u socodsiiso. soo ka faa'iidaysta insha allah sawir inaad ka qaadataan ayaan rajeynaa. saliidna waa ecologiska waaye dukaan kasta ayaa